xildhibaan Siciid Maxamed Siralle ayaa ku eedeeyay qaar ka mid ah wasiirada Somaliland in ay kala qaybiyaan beelaha dega gobolka Sool. Warbixinta warkani waxa inooga soo diray magaalada Hargeysa Qadar Macalin Deeq. xildhibaan Siciid Maxamed Cilmi Siraad oo kamid ah mudanayaasha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ee laga soo doortay gobolka Sool gaar ahaan deegaanka Laascaanood ayaa waxa uu ku eedeeyay wasiiro ka tirsan xukuumadda Somaliland oo ku sugan magaalada Laascaanood inay deegaankaasi ay ka wadaan kala qaybin beelaha gobolka Sool. wafdigan oo ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiirka wasaaradda biyaha Somaliland ayaa waxa uu xildhibaan Siciid ku eedeeyay in ay beelaha gobolka Sool ku dhaqan ay kala qaybinayaan kadib markii maalintii shalay ahayd ay go'aan mid kamid ah beelada ay la soo saareen kuwaas oo dhigaya in beeshaasi ay kaligeed iyadu iskeedu tashanayso. Siciid oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu arrinkaasi ku tilmaamay mid aad u foolxun isla markaasina wasiiradaasi ay deegaanka ka bilaabeen kala qaybin dhinaca beelaha. madaxweynaha Soomaaliland waxa uu ugu baaqay arrintaasi inuu tallaabo ka qaado. waxaan doonayaa halkan inaan baaq uga diro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. wafdi baa loo diray xukuumadda baa tagay gobolka Sool degmada Laascaanood halkii ay ka ahayd dadka inay isu soo dhaweeyaan wafdi waliba wasiiro waaweyn oo wasiiradii deegaanka hogaaminayaan oo niman xildhibaan ah oo meesha ku noqnoqon jiray ay la socdaan halkii ay ka ahayd inay dadka isu soo dhaweeyaan wafdigaasi gobolkii wuxuu ka abuuray wafdiga wasiirka arrimaha gudaha hogaaminayay maanta jooga gobolkii wuxuu ka abuuray tafaraaruq iyo in qaab qabali ah loo kala farfariisto xad wuxuu gaaray markii dadweynihii deegaanka odayaashoodii ay diideen inay la kulmaan oo arrimaha qaarkood kala hadlaan in koofiyada loo soo xidho saraakiishii xukuumadda ee joogtay gobolka ee wasaaradaha iyo hay-adaha joogtay baaq hadda ay soo saareen ilaa baaq baa la soo saaray baaqaa la soo saarayna baaq dadka deegaanka iyo odayaashii ay qayb ka yihiin maahay waa baaq ay isla saxeexdeen wafdiga wasiiradu hogaaminayeen iyo saraakiishii hay-adaha dawladda u joogtay gobolka sidaa darteed madaxweynaha anigoo ka mida xisbiga kulmiye anigoo ah xubnaha golaha baarlamaanka ee taageersan xukuumadda madaxweynaha waxaan ka codsanayaa arrinta gobolka dib loogu noqdo in dib loogu noqdo ayaan codsanayaa sidaa darteed waxaan leeyahay odayaasha wasiirada ah iyo ragga meesha tegina war dadkiina u tura dadka in la kala qaybiyo maaha in reero loo kala farfariisiiyo maaha inay inagu soo noqoto cunfigii qabaliga ahaa oo gobolkii la geliyo ma aha gobolku wuxuu u baahan yahay nabadayn wuxuu u baahan yahay dadka in la soo dhaweeyo wuxuu u baahan yahay xukuumadda say ula shaqayn lahaayeen waxay ku xiran tahay iyagoo wada jira in la isu keeneen ma aha in reero loo kala fariisiyo midna waan u sheegayaa labada nin ee wasiirada ah ee wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka biyuhu waa labada wasiir ee keliya degmada Laascaanood leedahay inay qoyskooda oo keliya la faqaan waliba qoyskayga aniga ah annagu isku qoys baanu nahay marka xagga laga eego inay la faqaan waxay ahayd Laascaanood oo isku dhan inay arkaan sidaa darteed anigoo ka xun madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne arrintaa dib ha loogu noqdo madaxweynaha waxaan ka codsanayaa mar haddaan wada hadalay odayaashii deegaankuna soo cawdeen in arrinta gobolka Sool loo saaro guddi gaar ah oo aanay ku jirin ragga hadda meesha tegay ee ay ka cabanayaan odayaashii iyo waxgaradkii gobolka ee ay hormoodka u yihiin wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka biyaha guddi gaar ah oo aanay labadaasi ku jirin iyo ragga kale ee la socda ee xukuumadda iyo golayaasha ah in loo saaro madaxweynaha ka codsanaya